taliya xigeenka ciidanka xooga taliyaha ciidanka dhulka taliyaha ciidanka cirka wufuudda kale oo martida inoo ah oo ka mid yahay Master Chris EU-da nooga jooga saraakiisha iyo jananada sareeyaasha meesha fadhiya dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta aad bay noo farxad gelinaysaa inaanu munaasabada tan aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii asaaskii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo laga joogo 56 guuradii ka soo wareegtay asaaska waxay maanta marka farxad noogu tahay in la kala soo qayb galo ay nagala soo qayb galaan madaxda annagoo uga mahad celinayna sida ay noogala soo qayb galeen waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin waa la socotaan taariikhda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waa taariikh soo jireena maaha wax maalin ama saacado ama muddo lagu soo koobi karo awoodda uu lahaa ama waxyaalaha uu difaaci jiray meelaha ugu muhiimsan ee uu ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ma ahayn ilaalin kaliya wuxuu ilaalinayay khayraadka ummadda Soomaaliyeed wuxuu kaloo ilaalinayay in xuduudaha uu leeyahay uu sugo ilaa raas Kamboni ilaa Saylac waxaa deganaa ciidamada badda oo ay ku lahaayeen baysas oo meel walbana uu ka joogay ciidan waxaa jiray ilaa 4 saldhig oo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ay lahaayeen oo ku kala yaalay Berbera Boosaaso Xamar iyo Kismaayo waxaan rajaynayaa haddii Allah awoodda la idmo haddii burbur dhacay ciidamada badda Soomaaliya de waxay ka qayb qaateen burburkii dhacay laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in dawladda hadda jirta ay awoodda saartay inay tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay u soo jeesato si ay dalkooda u hanan lahaayeen waxaan marka ay ka mid tahay waxqabadkii dawladda ee uu madaxda ka yahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo runtii aad iyo aad ay uga duwan tahay intii system ama dawlado hore soo maray aysan ciidanku uusan sidaan u dhisnayn maantana aynu ku faanayno inay xuduudaheena soo celiyaan waa la socoteen oo hadda ciidanka dhulka oo kale guulaha uu ka gaarayo ciidanku badduna insha Allah waxaan rajaynaynaa tababarka la soo siiyay iyo sida ay hadda ay loo dhisay inay dhammaan xuduudaha ay la leeyihiin dawladaha hadda iskaga soo ordaya oo waxaan leenahay badda Soomaaliya been bay isu sheegeen dhawaanna waxaan rajaynaynaa inay xuduudihii iyo badda Soomaaliya ay hantin doonaan ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waxaan marka ugu hambalyeeynaya waa guul soo hoyatay oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed inaan mar dambe khayraadkooda ama baddooda aan ajnabi uusan ku gorgortamin way soo dhamaatay waqtigii badda Soomaaliya lagu xisaabtami jiray ama khayraadkeeda la guran jiray ama Kenya oo aan dhul iyo xuduud toonna aan lahayn ay badda Soomaaliya tiraada annaga iska leh wax ka jira ma jiraan badda Soomaaliya Soomaali baa iska leh hal taako oo cadow qabsanaya ama dawlad shisheeye qabsanaysaana niyadooda ka saareen way ka dhamaatay waxaan leenahay waxa la gaaray xilligii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ay dhammaan ka howlgeli lahaayeen dhammaan baysaskii aan sheegay oo ay lahaayeen dawladda Soomaaliya hadday khayraadkeeda tahay la guran jiray inaan mar dambe la guran doonin haddii kontrabaan ama sun ama wax lagu soo yaacin doonin inaan mar dambe aysan dhici doonin waana ku filanna haddii Allah awoodda la idmo dhawaanna waxaan ugu bishaareeyaa shacabka Soomaaliya inay arkayaan ciidan Soomaaliyeed oo baddooda ilaashanaya oo khayraadkooda ilaashanaya oo khayraadka ka soo baxa ay manaafacaadsan doonaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed
ciidanka badda Soomaaliyeed sida uu u dhisan yahay ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu isaguna u dhisan yahay baddeena khayraad badan baa ku jira khayraadka ku jira waxa looga faa'iideynayaa haddii Allah uu wadalayno ummadda Soomaaliyeed ciidanku ilaalin kaliya maaha waxay ka qayb qaadanayaan hadda laga bilaabo siday wax soo saar u sameyn lahaayeen oo ay dalkooda ugu soo celin lahaayeen khayraadka badda ku jira aad iyo aad waxaan mar labaad hambalyo gaara u dirayaa ciidanka badda iyo difaaca xeebaha dableyda alifleyda saraakiisha saraakiil xigeenada sareeyaasha xaasaskooda iyo caruurkooda meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay sanad guuro wacan waxaan kaloo aan aad iyo aad aan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo noo suurto geliyay in ciidankii badda iyo difaaca xeebaha uu soo noolaado ayna ku hamiyaan inay hadda ay difaacan karaan baddooda Soomaaliya iyagoo kana faa'iideysanaya ilaalinayana waxaan leeyahay aad buu u mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ugu soo jeestay aad baan ugu mahad celinayaa isaga iyo xukuumaddiisaba waxaan mar labaad halkan uga mahad celinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda tan oo halkan fadhida waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin waqtiga oo kulul iyo hawlo badan oo ay wasiirada iyo madaxda halkan fadhida ay leeyihiin waxba hadalka ku dheeraan mayo taariikhdii iyo ciidanka badda iyo difaaca xeebahana insha Allah waa inta aanu ka taataabanay waayo lama soo koobi karo qof walba waa dareensan yahay qof kasto muwaadin Soomaaliyeed wuxuu ciidanku baddu ahaa loogama sheekaynayo way wada ogyihiin marka waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin sanad guuro wacan mar labaad iyo mar saddexaad aad baan waxaan ugu hambalyeeynaya sanad guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Soomaaliya ha noolaato